oo meel xun ku dhifa ayuu isleeyahay. Waa lagu soo dhawaaday, hadda waa lagu dhaqaaqay, waa lagu ordayaa, mid ayaa la qabanay, kii kan ayaa la doortay oo la koray. Isla markiiba waa laga buuxsaday oo dhulka ayaa la dhigtay. waa isla xaal ay ku tilmaameen ama tusaale ahaan ay uga soo qaataan inta badan isla sinjiyadda aan ka soo jeedno. Laba walaalaha ayaa goobtani isku dagaalaya ama geesaha iskula tegay. Meel aan ka dheerayna waxa ugu dhabaraya halistii ugu xumayd oo gool ayaa ugu dhabaraysa. Iyakuna war uma hayaana midba midka kale dil ayuu isleeyahay, waxu geysa ayuu isleeyahay, oo meel xun ku dhifa ayuu isleeyahay. Waa lagu soo dhawaaday, hadda waa lagu dhaqaaqay, waa lagu ordayaa, mid ayaa la qabanay, kii kan ayaa la doortay oo la koray. Isla markiiba waa laga buuxsaday oo dhulka ayaa la dhigtay. Muxuu orodku kuu tarayaa? Kii kale waa cararay, kuwan kalena way daawanayaan. Kani maalintiisi sidaas ayaa loogu gabagabaynayaa. Kii kalena wuxuu ku biiray isla kuwii kale ee la midka ahaa. Waana isla qisadii ahayd walaalkii loo xiriyo aadna soo qoyso oo maalintii soo gashaba ku iyaka ka mid ah ayaa si tartiiba loo cunaya. Waxaana kula sugan isla goobtani rag u haraadan ama miciyadu ay u dhaqdhaqaaqayaan sida ay dhiigooga ama ay hilibkooga isku marin lahaayeen, halkay isku duubnaan lahaayeen ama ay mid ka noqon lahaayeen. Iyaka ayaa gacmaha iskula tegay, iyaka ayaa dagaal isku qaaday, kadibna si tartiiba ayaa hadda loo cunayaa. waa la dooxayaa oo miciyada ayaa lagu aroorinayaa. waana dhaqan inta badan la xasuusiyo labadii walaalo ah ee dagaal isku qaada ama xumaan isku qaada ama midiyaha iyagoo iskula baxaan in cadowgooga ay u fududaan doonaan, si tartiibana loo cuni doono. Fariintani waxay ila tahay waa fariintii ugu qaalisanayd ee aan kula wadaagay isla toddobaadkani. adiguna la wadaag fariinta walaalahaaga kale oo dareensii qiimaha ay leedahay walaaltinimadu, kala tagga iyo isdagaalkuna xumaanta iyo caaqibad darrada uu leeyahay. bal fiirso hadda, meel xun ayuu kaasi ku dhintay, ka kalena berito leh isla sidaas oo kale ayuu u dhiman doonaa oo ma haysta garab ka difaaca ama uu isku haleeyo. haddii maanta kan soo loo cunay uu uga cararay kadib markuu dagaal ku qaaday, berito leh isagana taas oo kale ayaa u taala. waa ninbadhiilku kuugu caanalisay ayaa loogu caanalisay hadii la sheegayay. la wadaag fiidiyogan walaalahaaga kale. haddii aad hadda nagu cusubtahayna nagu soo biir, YouTube-ka nagu soo biir.